بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن خيارته ودنا قد جيسان يسايد الهانتين بملول بود جوكتان سوال بود جوكتان هالكني وراديها من دم وتوس إنكي مانيو حرونتي سمقالة نيروبي موجودة كالدوانة يدنقل سعطان عالم كودن بوغان ترات كبدن fm.com يدنا قد جيسان يسان ملكستو دوني دا كجوكتان يسيكستو دو جوكتان كسو دوادا كسو سيقا وسو كعتما برامجكي برامجادا عبشرة دودوينها وقرهان وكالة تضوات كودن مرقورة ama toddobaadkoo idil maalin qura aad ka dhegaysataan warbaahinta midnimo bidaainta bulshada barnaamijkan waxaan kusoo bandhignaa baahiyaha gaarka ee bulshada inagoo alaba booqano meelaha qayladhaantu ay kasoo yeerto waxaynaga go-an xalweelida mushkiladaha bulshada dhexdeeda ka taagan barnaamijkan waa barnaamij toddobaadlaha oo aan inta badan idinla wadaagno maalin weliba waxadda toddobaadkoo idil haddaba waxa uu baxaa subax weliba waxadda goorahan oo kale toddobaadkao dhan marka laga reebo maalmaha kale barnaamijkan waxaa idiin soo saaraa idiin falaqaya isku soo dabarida halkan idinkaga daadiya idiin farsameeya anigoo ah cabdiraxmaan sheekh yuusuf cabdiraxmaan jey waana maalinimo axadda taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay 30 bisha juun sanadka 2019 dhanka kale shawaal waa 27 shawaal 1440 sanadka islaamka hijriga khiyaarta quruxda badan meel kastoo dunida aad ka joogtaan si kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ismaqal wacan wanaagsan soo noqod wanaagsan maanta barnaamijka waxaan ku gorfeyn doonaa warbixino kala duwan oo nagu talagalnay dhegeystayaasheeda inaan la wadaagno ilaa laga gaarayo 11 ayuu barnaamijkan hawada inoogu jiri doonaa waa mar kale iyo barnaamijkii cabashada dadweynaha watahay akhyaarta hawada nagala socotay mar kale soo noqod wanaagsan ayaan hawada idin kala nahay barnaamijkan waxaan ku falanqeyn doonaa dhageystayaal takoor ganacsi oo inta badan lagu eedeeyay xildhibaan Kenyan ah oo laga soo doorto deegaan baarlamaaneedka Starehe ee countiga Nairobi Charles Jagwa oo loo yaqaan Jagwa ayaa xabsiga ku jira ilaa imika iyadoo laga warsugayo go'aanka damaanadiisa haddaba waxaa la sheegay in mas'uulkan kooxda dacwo soogida ayaa maxkamadda ku codsatay in 14 maalmood lagu hayo saldhigga booliska Kamagunji si baaritaan markaasi loo dhameystiro balse ilaa 4 cisho ayuu xabsiga ku jira Jagwa ayaa markaasi lagu qabtay afaafka hore ee aqalka baarlamaanka kadib markii uu ka hadlay Tanzania Uganda iyo Shiina asagoo ku eedeeyay shaqada kala wareegayeen shacabka Kenyaanka haddaba warqadda maxkamadda ayaa ku qeexan in Jagwa lagu eedeynayo in uu qorsheynayo kooxo burcad si ay u weerar amaba u weeraraan aan yiraahday ama u weeraraan hantida ajaanibta ganacsatada ee dalka ku ganacsado haddaba waxay dacwo soogida waddanka Kenya ay sheegtay in ay warqad u qori doonto